Qalabka loo yaqaan Move waa qalab loogu talagalay in aad ku dhaqaajiso moodalkaada wixii ku dhex yaalo, waxaana laga dhex helaa qalabkaas menu-ga kore. Waa sawirkan afarta falaare leh geesaha u kala jeedaan, ama inta kasoo dooro, ama waxaa suubin kartaa keyboard shortcut ayaa isticmaalaysaa adigoo hal mar taabanaya M. Markaa rabtid inaad shay aad ku dhaqaajisid, aad ka dhaqaajisid booskiisa, aad boos kale u dhaqaajisid, waxaa suubinaysaa un kaliya shaygaa rabtid inaad dhaqaajisid korkiisa tagaysaa, box cagaaran ayaa kusoo dul wareegsamaya asiga dhan, hal mar click ku dheh, siidaa, kadibna dhinaca rabtid u dhaqaaji. Marmar oo waxaa jirto adigoo dhaqaajinaysid, waxaa laga yaabaa dhulka meesha ugu tala gashay inaad ku dhaqaajiso inuu ka dhex duso, sidaa aragtaan. Si aad ugaaga badbaado sidaan, waxaa suubin kartaa intaadan dhaqaajinin ka hor ayaa shaygaa rabtid inaad dhaqaajisid ayaa sii dooranaysaa. Hadda escape ayaa taabanaynaa si oo meeshiisa ugu noqdo. Kadib waxaa dooranaysaa qalabka selectiga. Waa falaartan, ama waxaa isticmaali kartaa keyboard shortcut adigoo hal mar taabanayo space. Marka shaygaa rabtid inaad dhaqaajisid sii dooro. Hadda anaga miiskan camlaa rabnaa inaad dhaqaajino. Hal mar ayaa click ku dhahayaa sidaas. Box cagaar ayaa asigan kusoo wada wareegsamayo. Kadib waxaa isticmaalayaa qalabka Move. Ama inta kasoo dooro, ama keyboard shortcut ka isticmaal M taabo. Kadib intii aan meel click iskaaga dhihi lahay, waa ka fiirsanayaa meesha click ku dhahayo. Ama miiska lugtiisa meesha ugu hooseysa ayaa click ku leeyahay, ama boxka cagaarka oo ku dhex jiro qarkiisa. Sidaas click ugu dheh, kadibna u dhaqaaji dhinaca rabtid. Si oono dhulka ugaaga dhex dusin. Si kale oo waxaa jirta u isticmaali kartid. Haddii aad rabtid lacalla in aad miiskan aad ku dulwadid axis-yada kala duwan, sida axis-ka gaduudka ah iyo axis-ka green-ka ah, waxaa suubinaysaa un kaliya asigoo kuu dooran hal mar keyboardkaaga falaarihiisa midda waxaa taabanaysaa right-ka ah, wuxuu kugu xirayaa red axis-ka gaduudka ah. Click ku dheh, kadib falaarta keyboardkaaga mid ka mid ah taabo. Axis-yada mid ka mid ayuu kugu xirayaa. Hadda midda gaduuda ugu xiray. Haddaa rabo axis-ka green-ka inaad ku dul wado, waxaa suubinayaa falaarta kala taabanaya. Axis-ka green-ka unbuu sidaan ugu wadwadayaa kama dhabaxayo. Haddaa rabo kor inaad u wada falaarta koraa taabanaya. Kadibna sidaas ayuu u wadayaa kor iyo hoos. Dhinac kale kaama aadaya.